si ay kuu soo gaadhaan waxyaabahan soo gelina daawade fadlan taabo subscribe isla markaana riix calaamadda gambaleelka si ay ugu noqotid qofka ugu horeeya ee daawada waxyaabahan soo gelino. mahadsanid. السلام عليكم kusoo dhawaada taxanaheedii taariikhdii Sheekh Mustafa qaybtii labaad inagoo ka soo hadlaynay dhalashadiisii iyo meertadiisii taariikhiga 1980 kuliyadiisii takhasuska technology-ga isla mar ahaantaana waxaan ka sii qaadi doonaa wixii ka dambeeyay takhasuskiisii. Wuxuu macallin ka noqday dugsi farsamo gacmeed oo ku yaalay Burco oo ka dhisay Jarmalku muddo qiyaastii hal sano ee bar ah markuu joogay dowladii Soomaaliya. Waxa uu sheekhu sheegay markii la xidhay kadib inuu soo maray intii meelood ay wax ku xidhi jirtay waqtigaas dowladdu, waxaana ka mid ahaa saldhigga booliska, NSS, xero guulwade iyo xero military iyo qaar kale. Uu sheekhu sheegay waxa uu xabsiyada ku jiray sanado iyadoo wax maxkamada la taagin. Sheekha ayaa ka tegay magaalada Burco bilowgii dagaaladii sokeeye markii ay jabhaduhu soo galeen, isaga oo kaxeeyay inama xanuunsan ay walaalahaayeen xagga iyo qaaradda Yurub 1988. marka uu indoora joogay xagga waxa uu dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa March 1999 isagoo ilaa hadda degan magaalada Hargeysa. waxyaabaha uu kaga xusan yahay sheekhyada culimada Soomaalida kale waxaa ka mid ah inuu yahay sheekha kaliya amba Soomaaliga kaliya ee ka sheekeeyay taariikhda Tataarka bilow ilaa dhammaad. la soco qaybaha dambe. mahadsanid daawade. fadlan commentiga noogu reeb wixii macluumaad ah.